Assalaamu calaykum waraxmatullah. Qaarad Afrika. Maanta waxaan ka hadli doonaa qaarad Afrika iyo badka. Waxaan ka hadli doonaa 10 dal ee ugu dhulka weyn qaarad Afrika, inagoo ka bilaabayno midka kaalin tobanaad ku jira ilaa midka koowaad. Ku soo dhawaada mawduucina maanta. Aan bilowno daawadayaasha ku xiran kanaalka ogaal. Waxaan ku bilaabaynaa midka ku jira kaalin tobanaad. Dad badan ayaa aaminsan in Itoobiya tahay midda ugu weyn Afrika. Qaarad Afrika mid ugu weyn ayaa dad waxay aaminsan yihiin inay tahay Itoobiya. Laakiin arrin sidaa maaha. Itoobiya waxay ku jirtaa kaalinta tobanaad. Aan bilowno. Itoobiya waa dalka tobanaad ee ugu weyn qaarad Afrika. Baladeedu waa 1,104,300 kilomitir isku wareeg, waxayna dhacdaa bariga Afrika. South Africa waa dalka sagaalaad ee ugu dhulka weyn qaarad Afrika. Baladeedu waa 1,221,037 kilomitir isku wareeg, waxayna dhacdaa Koonfur Afrika. Mali waa wadanka sideedaad ee ugu dhulka weyn qaarad Afrika, waxayna dhacdaa galbeed Afrika. Badkeeda wuxuu gaarayaa 1,217,000 kilomitir isku wareeg. Angola waa wadanka toddobaad ee ugu weyn qaarad Afrika, waxayna dhacdaa koonfur bari Afrika. Badkeeda wuxuu gaarayaa 1,246,700 kilomitir isku wareeg. Niger waa wadanka lixaad ee ugu weyn qaarad Afrika, waxayna dhacdaa galbeedka Afrika. Badkeeda wuxuu gaarayaa 1,267,000 kilomitir isku wareeg. Dalka Chad waa wadanka shanaad ee ugu weyn qaarad Afrika, waxayna dhacdaa bartamaha Afrika. Badkeedu waa 1,284,000 kilomitir square. Libya waa wadanka afraad ee ugu weyn qaarad Afrika, waxayna dhacdaa waqooyiga Afrika. Badkeedu waa 1,759,540 kilomitir square. Suudaan waxay ku jirtaa kaalinta saddexaad dhanka badka qaarad Afrika, waxayna dhacdaa waqooyiga Afrika. Badkeedu waa 1,861,484 kilomitir square. Wadanka kaalinta labaad ku jira waa wadan magaceedu aad u dheer yahay, sidaa daraadeed waxaan kusoo gaabinaynaa DRC. Magaca saxda waa Democratic Republic of the Congo. DRC waxay dhacdaa bartamaha qaarad Afrika, waxayna ku jirtaa kaalinta labaad dhankii badka qaarad Afrika. Badkeeda wuxuu gaarayaa 2,858,000 kilomitir isku wareeg. Daawade muuqaalka boos dheh. Ma fahmi kartaa wadanka ku jira kaalinta koowaad, wadanka ugu weyn qaarad Afrika? Haddaba wadanka Algeria waa wadanka ugu weyn qaarad Afrika, waxayna dhacdaa waqooyiga Afrika. Badkeeda wuxuu gaarayaa 2,681,741 kilomitir square ama isku wareeg. Waxaan isla soo gaarnay gabagabada mawduucina maanta. Intaynu markale kulmayno waxaan idinkaga tagayaa fi amaanillah.